tababarkan oo muddo 4 cisho ah socday ayaa ku saabsanaa tayada iyo isticmaalka xogta caafimaadka waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxaana ka qayb galayay madaxda xog ururinta wasaaradda caafimaadka ee gobolada dalka iyo cisbitaalada saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay shaqaalaha inay aqoonta ay barteen u adeegsadaan shaqada ay qaranka u hayaan madaxa xog ururinta ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dardaaray shaqaalaha inay hubiyaan xogta si loogu saleeyo qorshaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladii uu Dr. Cabdilaahi Cabdi Yuusuf halkaasi ka jeediyay kamid ahaa soo qayb galay dhammaan madaxda xogta xog ururinta iyo warbixinaha ee gobolada dalku ka kooban yahay iyo cusbitaalada marka waxaan leeyahay aad ku dardaaraya dhammaan qorshaha hawlgallada caafimaadka iyo barnaamijyada waxa lagu dejiyaa wax xogta soo dirtaan xogtaas inay noqoto mid dalka iyo dadka u faa'iideysa oo noqoto mid la hubo oo reliable ah inay noqoto mid ka farxisa dhammaan dadkeedii la wadaago xogta hay'adaha dalka caawiya dawladda iyo madaxda gobolada iyo wasaaradda caafimaadka inay noqoto mid la tartanta hababka ay u shaqeeyaan caalamka